Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samna Kasta Official. Fadlan channelka haddaa ku cusub tahay subscribe noo saar, gambaleelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee halkan ku soo gudbino. Saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad hore noola joogtay channelka. Waxaa ka codsanaynaa muuqaalka inaad like garayso, sidoo kalena aad sii share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan. Barnaamijkeena maanta waxaa ku soo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Beast, waxaana hogaamiye ka ah Superstar Vijay. Sidoo kale waxaa talisha koowaad ka ah xiddigta lagu magacaabo Pooja H. Sidoo kale weli lama shaacin filimkan Vijay qofka kula xifaaltami doona ama doorka laadarnimada qaadan doona, balse maalmahan fooda nagu soo haya ayaa la shaacin doonaa iyo weliba trailerka xilliga lasoo bandhigi doono bishan gudaheeda. Sidoo kale filimka waxaa laga soo bandhigi doonaa goosgoos heer caalami ah oo aad looga heli doono, kaasoo filimka inta badan lagu qiimeeyo goosgooskiisa iyo sheekadiisa. Inta badan qolyaha filimada ka faalooda filimka waxay ku qiimeeyaan sheekadiisa. Sidoo kale filimkan waa filim si weyn loo sugayo, waxaana laga leeyahay dhankaas koonfur Hindiya, gaar ahaan gobolka Tamil Nadu. Filimkan waxay isku dhici doonaan filimka lagu magacaabo KGF Chapter 2. Sidoo kale waa filimka labaad ee isku dhici doonaan KGF, halka filimka kale ee saddexaad isku dhici doona yahay Jersey oo laga leeyahay dhankaas Bollywoodka, kaasoo isku dhici doonaan Abriil 13keeda. waana saddex filim waaweyn oo si weyn loo wada sugayo, kuwaasoo big clash ku dhici doona ama isku dhac aad u weyn loo wada sugayo. Sidoo kale filimkan maalmahan ayaa la filayaa in goosgooskiisa lasoo bandhigo haddii ay daawadayaasha ka helaan goosgooskiisa. Marka 13 Abriil soo bixi doona sheekadiisa ayaa la qiimeyn doonaa. Maalinta koowaad ayaa filimka sheekadiisa la qiimeeyaa, kadib daawadayaasha ka dambeeyay maalmahaas filimka hadduu noqdo mid sheeko wanaagsan, filimkaas wuxuu noqon doonaa mid ama waxaa la rajeynayaa inuu noqdo filim guuleysan doona. Xiddigan wuxuu saaxada aflaamta ka dagaalamay muddo hal sana. Filimkiisii ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii Master ee ku xifaaltamay Vijay Sethupathi, kaasoo filimka laadar ka jilayay. Filimkaasna waxaa filimkiisii ugu dambeeyay oo ganacsi ballaaran sameeyay, kaasoo guul weyn gaaray, kaasoo gaaray darajada hit ama filmaanta lagu qiimeeyo. Sidoo kale filimka KGF ayuu isku dhici doonaa 13 Abriil, maadaama saaxadda kuga soo hormari doono 13 Abriil. KGF wuxuu soo bixi doonaa 14 Abriil. Maalintaasna waxay u tahay fursad weyn maadaama hal maalin ka soo hormari doono. Sidoo kale filimkan sheekadiisa hadday wanaagsan tahay, waxaa laga yaabaa filimka KGF 2 inuu ka lacag badiyo. Sidoo kale dhulkiisa Tamil Nadu waxaa laga yaabaa guul weyn inuu ka gaaro, maadaama halkaas uu ka leeyahay taageero aad u ballaaran. Taageeradaasna ay saacidin doonto inuu filimkaas guul weyn u gaaro. Sidoo kale waxaa la isla dhex marayaa filimkan, waxaa sheegaya in Vijay uu filimkan ku matalayo tuug weyn oo dhaca badan u ka geysan doona India iyo meelo ka baxsan. Sidoo kale Vijay oo soo laabtay isagoo la soo laabtay filim kale inaba caadi ahayn, kaasoo laga yaabo filimkan inuu noqdo mid laga daawan doono Pan India Movies, balse laguma dhawaaqin filimkan inuu yahay Pan India Movie oo waxaa laga daawan doonaa dhulka Tamil oo kaliya. Fadlan aragtidaada ka dhiibo iyo sidoo filimkan u sugayso iyo filimkan sida uu kula muuqan doono ama sida markaa u sugi doonto, waxaana la wadaagi doontaa dhanka commentiga. Haddii aad ka heshay muuqaalka like noo saar, sidoo kalena sii share garay si uu u gaaro saaxiibo badan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.